السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي في الله فرحية إنay tahay umalena magacaagu jazaaki illaahu khayran. ilaahay khayr badan ha ku siiyo, ilaahay raxmad badan ha ku siiyo, ilaahay dembi dhaaf ballaaran ha ku siiyo, waxaa jeceshahay jannada ugu horeysa allah ha ku siiyo. ilaahay waxaan kuu weydiinayaa wax kasta oo qalbigaaga ka dhex guuxaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu hirgeliyo, caafimaadkana allah ha kuu adkeeyo, ilxunna kuma maqasho, ilxunna kuma aragto, dhegxunna kuma maqasho biidni illaahi alkariim. أما بعد رأي أهل الذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iska warama dhammaantiin oo dhan intuu sida yadu habeenka u galay habeen wanaagsan ayaan leeyahay, inta kalena allah ha gaarsiiyo, caafimaad allah ku gaarsiiyo. maasha allah dadaalkii iyo juhdiga aan ku jirnayna ee maanta aan soo wadnayna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga aqbalo, intii aan ka gaabinayna inaa ilaahay subxaana wa tacaala berina waafajiyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa. أما بعد قصة أيام مقلي هبين هراء شلي واسك مشغولسنا إن ما تأمي كان يشجع يعني جعل قصة داسي سبحان الله. وقصة أنو جهرت مركي عن مقلي والله وين ما هنا وحكى لهم كل جواب وقروا معي مركا قصة داسي معها ولا صوري، لكن دتكي أركي وان أركي waan ku jiray dadkii waxa ay ku dhacday, waan ku jiray waan arkay weeyaan. marka dadkii ay ku dhacday iyo dadkii ku jiray marka waxyaan qisadan waxa ka sheekeeyay. qisadani marka sida uu eegtid cibray xambaarsan tahay, yani waxaad garanaysaa qawada ilaahay subxaanahu wa tacaala, qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala, yani ilaahay subxaanahu wa tacaala mucjizaadka inuu gaalada u soo dirin oo dadka muslimiintana mucjizooyin u soo diro si ay dharbaaxada iyo qaflada ay ku jiraan ay uga toosaan, si ay u ogaadaan yani waxyaalo badan. subxaan allah. qisadu waxay ku bilaamatay gabdhihii nagu soo baxay markaa jamacaadka masaajidka ku soo baxay, gabar ka mida ayaa markaa qisadan ka sheekaysay. gabadhana waxay aragtay ay la kulantay gabadhii gurigeega ku soo baxday, iyada gurigeega ku soo baxday oo ahayd gabadha qisadu ku dhacday la jaar ah, guriga qisadu ka dhacday guriga ka soo horjeeda. marka waad fahmi doontiin sheekadu si u socota insha allah. waxay tiri salaad baan galaynay, jamaacadka markay tukanayeen ay salaadii maghrib galeen, salaadii baan galay bay tiri. marka tuyoroy mucooy u tahay amba ayay u tahay qof sidoo u garanayo ayaa tiri anagoo salaadii tukanaynay qaylida bay tiri. waxay tiri alla kaadi baa yahaysa, alla kaadi baa yahaysa. marka tayar way bugtay, kaadiduna way gubaysay. markay sidii u qaylaysay tiri anagu salaadii baan iska sii wadano, salaada ha goynin aan lahayn bay tiri. gabdhihii ka mid ah ayaa intay salaadii ka baxday, intay caymaday tiyareed kaniifka geyso, soo kaadishiiso, soo noqoto, soo celisay, ayay markiina duusho gidaarkay ku dhacday. gabadhii wayba suuxday. subxaan allah. gabadhii waa la fariisiiyey, biyaa la waraabiyey, waa la rusheeyey, way soo noqotay. markay soo noqotay ayay haddaba qisadii ka sheekaysay. waxay tiri dirdhabay qisadu ka dhacday. waxay tiri maalimaha ka mid ah waxaa jiraysay guri naga soo horjeeda. gurigaa naga soo horjeeda hooyo 3 awlaada haysata adeeganayd, ilmo naaskay siinaysay, labana way yaryaraayeen. waxay tiri aniga gurigeygana dukaan ayaa ku dhajisnaa. subxaan allah. wallahi waan jirircoonay markaan ka sheekeynayo. waxay tiri gabadhu maalintii way iska baxdaa, ilaahay risiqiga wuxuu magaalada uga soo qoray qaada, habeenkiina gurigeygaas iskaga hooyataa. waxay tiri maalimaha ka mid ah ayay suuqii waxba ka soo weyday, waxay awlaadeedii siisay cunto ay ka soo weyday. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ninkii dukaankay u timiday, waxay ku tiri waxaa i siisaa sokor yar oon shaax ku karsado. wuu u diiday, wuxuu ka yidhi lacag keen anba iska soco. awlaadeedii oo dibadii ku ciyaarasay intay ururisay gudaha gelisay, aqalkii hoosta iskaga soo xidhay. gabadhii markiibaa ugu dambeysay dadku inay arkaan. laa xawla walaa quwata ilaa billah. muddo 3 cisho ah gabadhii mana soo baxdo aqalkii, waxna kama soo baxaan, waxna kama galaan. awlaaday haysatana awlaad albaab furaysanayna waa awlaad juhaala waxay haysato. waxaa la yidhi inatan sheekada ka sheekaynaysaa albaabkii qaraacday, bay ku qaraacday naa heblaayo ma jirto, cid ka furaysa ma jirto. waa muddo 3 cisho ah. waxay tiri ciyaal baan soo ururiyo ku yidhi kaalaya u dhaca aqalka ina la joogiyo in kaloo haddii kale albaabka naga fura. albaabkii baa laga furay. idaa maxaa la arkaa gabadhii oo meyd oo jiifta. subxaan allah.
iyo ilmihii yaraa oo naaskii ka jaqayo naaskii caano leeyahay. laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah. labadii awlaad ee yaryarayd ee ka roonaydna ay daaradda ciyaarayaan, ay iska ciyaarayaan. subxaana allah. waxay tiri waan naxnay, waan argagaxnay, waan isku yaacyaacnay, lacag baan soo ururinay, kafan baan usoo iibinay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxay tiri markaan meydkii maydhnay, een sariirtii kala dul saarnay, een kafankii kala furnay, idaa kafanka waxaa ku qoranba kaafiriin. subxaana allah. kaafiriin baa kafanka ku qoran. waxay tiri waan naxnay, waan caymadnay, kafankii baan celinay, waan soo qaadnay mid kale. markaan dukaanka kafanka joogna bay tiri kafanka waxba kuma qorno, waa caddaan. marka keliyan aqalka keennana kafanku waa kaafiriin baa ku qoran bay tiri. subxaana allah. 3 jeer waxay tiri markaan kafankii sii qaaday ee soo qaaday, waxay tiri intaan saa u kala furay kafankii markii 3aad kaafiriin baa ku qoran. laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah. walaalayaalow jaarkeenna hoos ha u eegno, kaafiriin baa ku qoran. waxay tiri argagixii intaan kafankii la caymadayaan kolba xaafad qaraacnaa, kaafiriin baan nahay, anigu waan ku jiraa, gabadhaasi gaajay u dhimatay, gabadhaasi haraad bay u dhimatay, gabadhaasi cunto la-aan bay u dhimatay. subxaana allah. waxay tiri intaan isku jeednay een isku maqnayn, haddii aan maqsinkii meydku yaalay furnay, waaba gabadhii oo kafanba. allahu akbar. oo kafan akhtara sidata, oo gurigii uunsigaad arkaysid qiiqii ayaa ku riday mooyaane cid qiiqa ku riday. udgoonka guriga aad ka yaabaysid, iyadiina kafan akhtaray sidataa, oo kafankooga loomaba baahnaba leannao kaafiriin baa tihiin baaba ugu qoran. waxay tiri saskii labaad baan halkaa ka sii qaadnay. dumar kalaa dharya soo ururiyey, ina dharya la kariyaa la doonayaa, daaradeedii baa la keenay. ilaahay dabayl buu soo diray ka waran. subxaana allah. waxay tiri gidaaradaan isku wada dhejinay, wixii dharya yaalay oo dhan cirkaas ha lagu shareeray. dabkii ay shiteen ilaahay uu ka baktiyey subxaana wa tacaala. ilaahayow noo naxariiso, ilaahayow noo naxariiso. gabadhaasi waxay tiri gidaaradii baan isku nabnay, shalmadihii buu la duulay dabayshii, dherihii bay dabayshii la duushay, alaabtii aan soo iminay dabayshii la duushay. waxay tiri waan argagaxnay, waan naxnay, ninba halkuu jooguu ku qambabay. ciyaalkii yaryaraa baan waraysanay bay tiri. waxaan ka oranay tiri goormay hooyo jiifsatay? markaasay idhaahdeen waxay hooyo jiifsatay markii aan albaabka sidaa uga soo galnay. maalintii halkii ay jiifsatay hooyo iska jiiftaa, annagase laakiin waana la cuntaysiin jiray bay idhaahdeen. biyahaad arkaysiin waana loo dhaamiyey. subxaana allah. hadduu bini-aadankii jaarkayga ha dayacay, rabbi raxmaakumuu dayacay, may wallaahi ma dayicin ilaahay subxaana wa tacaala. waxay tiri ciyaalkii waxay idhaahdeen waana loo meydhayey, waana la cuntaysiinayey, wiil iyo gabadh ayaa nala joogay. laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah. waa gabadhii bilayadu ay sababta ahayd in la ogaado ina guriga ay gabadhu ka dhimatay. waxa sheekada ka sheekeynays. walaalayaalo su-aashu waxay tahay, jaarkeenna war maa u haynaa inay dhargeen? jaarkeenna war maa u haynaa inay gaajoonayaan? jaarkeenna xaaladay ku jiraan ma ognahay? may wallaahi cid kasta iyadaan maanta iscajabisay. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, ciddayadu jiifsatuu jaarkayguna gaajoonaayo, aniga ummadayda ka mid maaha. bilaahi calaykum ayaa ka mid nahay. albaabkii kaa soo horjeeday haddii aanad u naxaynin, albaabkii kaa sii jeeday haddii aanad ogeyn, ma waktiga dhibaatadu timaado unbaa walaal la yahay? ma waktiga la murugoonayo unbaa walaal la yahay? gurigaaga cuntada waa daadisaayo, gidaafadaa ku ridaysaa wixii kaa haray, garaaseerkay kuugu qurmayaan. maya cunto aada u baahnayn ayaa dhukaa ku daadinaysaa. dadna beerkay dhuka ku hayaan oo gaajo ayaa haysa. rabbigooga ayaa xaalkooga og. wallaahi qisadaasi xoog iyo xoog bay ii taabsatay. walaalayaalow jaarkeena ha ka warhayno, ha u qarino xitaa waxaa siinayna maaha inaa ummadda uun tusno, ha u qarino, ha ogaano. qofka baahidiisa maxaa ku ogaanaysaa? markaa subax kastaba sii salaantid ee soo salaantid waa ogaanaysaa baahiduu leeyahay. laakiin markaan la hadli weyno, markaan albaabada u dallacano, marka anagu qabow ku jirna, yacni shalay oo qura roob baa da-ayay ka waran, dhulku qabow buu ahaa. anagu daara waxaan ku jirnaa meel engegsan oo roobkii aanan dareemin, oo la ilaahow raxmadda ana siisay adigaa mahadsan. laakiin qoladii markuu tiixay dhuritaan biyo bilaabay ka waran. subxaana allah.
ilaa inta uu roobku ka joogsanayeyna biyaha sidaa u dhureeyay. walaalayaalow ha isku ducayno, wallaahi duco badan ayaa u baahannahay. jaarkayna inaan ka warhayno. jaarka guriga jaarkaaga u maaha, waa 40 guri oo jaarkaaga ah weeyaan. waxa adigu haysatid. caaisha radiallahu canha, caaisha maaha, faatima iyo cali, ilaahay ha ka raali noqday. cali wuxuu ahaa kaatib alwaxyi, waxyiga nebigu u qori jiray calayhi salaatu wasalaam. faatimana waxay u shaqo tegi jirtay nin yahuudiya oy midxinka u soo xashi jirtay. markaa maalimaha ka mida awlaadoodii baa ka bukootay, xasan iyo xuseen. waxay ku qaadeen nadariira, ilaahu haddaad noo caafisid awlaadda, waxaan soomaynaa 3 cisho dartaa. ilaahay markuu awlaaddii u caafiyeyna 3 cishay soomeen. 3dii cisho markay soomeen, maalintii ugu horeysay baa layidhi waxay la soo rawaxday faadumay la timiday rakiifa qubsin, in yar oo waxay la timiday markaa ciishay la soo rawaxday. mar alliya markuu afturkii taagan yahay ayay albaabka ku gargaraacay miskiin. markaasuu ka iri cali sii, wuxuu haa marka caabiro sabiil, yacni mid safara ayuu haa. maalintii labaad sidii si leeg wuxuu ka iri sii, ma afturayaan intaa biyo un bay cabayaan, maalintii kale sidii bay ku soomayaan, ka waran. wuxuu ka iri waa waxa weeyaan bay ka tiri nin jeel laga soo sii daayo, waa asiir. sii buu ka iri. maalintii 3aad waa miskiin. sii buu ka iri. 3dii cisho ilaahay dartii waxay ku afturayeen, xitaa ilaahay dartii bay ula baxeen. walaalayaal, annaguna wixii aan bil dhan cunaynay baa guryaha noo yaala. inaan ka dhimanayna iyo inaan ka gaarayna ilaahay baa garanaya. marka ay walaalaheena ka gaajoonayaan, annagii dharkeeni kabarkii haddaa furtid inaad xiranaynin baa daf ah. ay walaalahana ka qaawan yihiin, laga yaabaa markay tukanayaan inay wax ay ku tukadaan xitaa ay haysan. laa ilaaha ila allah. annaguna ummad muslimiin aan isku sheegaynaa, muslimnimaan ku dhaaranaynaa oo ku dhalanay baan leenahay. bilaahi calaykum, khuluqii islaamnimada xaguu jiraa, wanaagii islaamnimada xaggay jirtaa, isku naxadii islaamnimada xaggay jirtaa. ilaahay hana gargaaro, ilaahay hana hadeeyo, ilaahay hana hanuuniyo. naftayda iyo nafiina waxaa ku waaninaya walaalayaalow qisadaasi inay noo noqoto cibrad, inuu ilaahay jaarkeena nagu rogin, inaan jaarkeena u gargaarno intaan u gargaari karayno, inaan xaalkooga wax kala qabano intaan kala qaban karayno. ilaahayna subxaanahu watacaala dembi dhaaf iyo makfirad ayaan weydiisanaynaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.